qoyska abwaanka weyn Axmed Salabaan Bidde oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan inuu hortaagan yahay inuu fuliyo amar uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo kaas oo dhigaya in loo madax baneeyo beer ay qoyskoodu ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. abwaan Axmed Salabaan Bidde iyo qaar ka tirsan qoyskiisa ayaa warbaahinta la wadaagay cabashada ay ka tirsanayaan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland boqor buur madow Sultan Maxamed Cabdulqaadir hadii ameedinkeeda la yahay Faysal Ali Waraabe hadii ameedinkeeda la culimada cid kastaba oo ay la hadleen oo yiraahdeen anagoo cabanayna markay maqleen war beertani ma aha cidle sharci buuxday haystay madaxweynaha soo siiyay adiga maxaa ku qaaday ogoon raagtay nimankani wuxuu inta say tirsanayaan wadanka ku leeyahay waa wada jabahadii wuxuu inoo fasax iska fasax hadalka kalaamul islaamka maslaxada annaga u diranay annaga barinay annaga la hadalay annaga yarganoo ahay ala waa inka ka reebeen iyo waxay u sheeganayaan midna ma jiro laakiin oday biya la dhaaniga oday biya beertan sharcigeediyo buuxa ayaan weligeey bahaysanay sanad walba waa cashuura على حلك صارن مو إجن أمر كم مدحونه وصو فري ويري كلا حدا ما شانا طبعا بوك قاضي يضع أي تاي دكتور مدحونه هل كامر هدا أنا أمر كم مدحونه السعونين أو على ديدي أو هرتاجي أمر كم مدحونه اللي أنا مدحونه ذلك شرعي مشرو ده واحد نقول سألنا قلنا إنه البابين وحضنا سمينا إننا نسكي عنه ده كان كنت أسوي شريك ها نك أوبر علي amarkii madaxweynaha dhaafay ee sharciga dalka iyo dadka u dhaxeeyay dhaafay waxa weeyaan cid kale oo ka liidatana ma dhaafayo amba cid aan hadla karin ma daynayo sida awgeed waxa aan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqayaa ilaa madaxweyne ilaa madax dhaqameed ilaa ma culimo ilaa cid kastaba waxa ninka dalka laga qabto oo dadka laga qabto halkan waxaan ahay Khadiija Salabaan Bidde 84 sano jiri 7 jir maalintan hay wax kala gartay sidii baraarka la iigu dareeriyay halka uu baan joogay awlaad fara badan waan ku dhalay de wasiirka walaalkaya ee ehelkaya in reer shaqo saxaaqa ee annagoo dadka wada cadaaday adamcay inuu ciidi aan fadhinaan ku dhalanay kor nooga kiciyo waan ku caban Xasan Galadho Cable TV Hargeysa.